هياي وريا عيالكينا سكا بايرة كبايرة هرسي سكا لحظة waa madaxweynihii Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed u sheegaya oo madaxdii Afrika hortooda ka sheegaya in xornimadii la qaatay 30 sano ka hor Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegaya oo uu leeyahay farmaajo sanadka 2020 marka la gaaro uu leeyahay ما أقول لك إن الوجه السنة كلا بكرة لما تكحتها ما أقول بابلا يا ما حد سك محولي سك وعلكن إسماعيل مرجلي وهي إنه قبصامه أكتوبر تيلا صور ضعفي وسوي كشقي لكن مسؤولين وحنكو إيري مدحوينه لبعتن سنة يا عرت لك الجوجا إن حرية مكان قادرنا إنه وحنا الجوجا صدق سنة شادي هاي قبر حليف كان قبر حشيش وحامي ويا حشيش معبل خمر الدعاس عبل هذا أنا أمد الصومالية وأنا تاجسين محيلي أمد الصومالية وأنا تاجسين محيلي حشيش وحامي سك شادي سك waxaa ninka waanin macallin waanin laga barto wadaniyada iyo siyaasadda iyo arrimahaasi oo dhan way ardada ka qalin jibisayaan ku daawasiinayay tacliinta ay uga qaateen oo cali jeeb ku jire oo sheegay qodbad jeedinayo sheegay in Soomaaliya ay leedahay qaaradda Afrika ugu dheer qaarad weeyaa odaga xeebtu raamut qaaradda Afrika ugu dheer ilaa Soomaaliya taagan yahay waxa way jaamacadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo baxay moogta waxa la shimbirkii la duul aadmiga laba u shoor dadkuna sheedis ka dib waa wiil yaabihi waxa la oo ka horeysa qaadkiisa uu leeyahay sog shaadi ikaadi qashaarak waxaan ku heshiinay Soomaaliya ama ay tahay inaan leenahay qaaradda koowaad Afrika ugu dheer markaas oo lama horaan noqon mayso inaan ka faa'iideysano qaaraddaas شادي اي حشيش وحامي مايا عجيش كبعه معلن كيس فرماجو واينو فرماجو مدينة حرنمي الصومالي 30 سنة laga jooga ya saas badaayo waxa soo socda ka darna bal meeshan eega waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninka ay madaxweynimada Soomaaliya loo imaamaday yiri madaxweynaha Soomaaliya nahay oo sadohdii aqoon way sadohdii gabadha uu qabo hooyadeed wuxuu leeyahay in abshira aadan markaas loo sheegay maya ma bishaaro suuliya bishaaro aadan caawa nin iga nasiib badan ma laha hooyaday waa joogtaa Maryam Xasan ma sha Allah oo kamid ahayd halgamiyaashii hore ee SYSha iyo sodogtay abshiro aadan bishaaro aadan iyo xaaskayga halkan la fadhida oo garabkayga ah iyo شادي هاي أفارك شكي حشيش وحامي بل وعصاص صعدنا إيجا ومدحوينه أو كقد بيني بارلمان قهرتيسة أولي أنك وحينو متقانا وحبرش فريسين الليحدن يشان أرضي dowladani waa dowladii ugu horeysay oo bixisay waxbarasho free ah oo lacag la'aan ah 65 arday yaan waxaan siinaa waxbarasho حشيش وحامي وحاسي وعمها معبي ما ساس ما قبل دعوة عب حشيش ما ويا إيكادي شاكا أنا إذن هاي عيالك حافظ إيكادية وحاوية
ninkan aad arkaysiin maxamed cabdullaahi farmaajo mis weydiiseen waxbarashada goormo u fariistay jaamacadda goormo u fariistay 1985 ba u fariistay goormay qalin jabiyay ka siiseen oo bachelor qaatay 25 sano kadib 2009 ayuu alaabtiisa qaatay ha laakiin marka uu ingiriiska ku hadlaya hortiisa lama istaagi karo laguma safaadi karo Donald Trump baa yaabay ma fahamtay qaramada midowga la hadlaya daawada madaxweynuhu soo qataraya The challenges of radicalization, illegal medications, migration. شادي صابون عظمونه حشيش وعامل يا waxa arkaysaan waxa arkaysaan waxa weey Soomaali mid baan leeyahay Soomaali mid baan leeyahay ninka walaashi ka yar إذا عبد الله فرماجي جواد وقبناكته وقبسينا مع الهشيسي ويسكيني واي ميا لقى سوقي سومالي وين سكانو نك حافظة ودقية هي الدقمة ورنيجلي نبدين واي ميا لقى سوقي نك جامعة وحبر شجري كل سجال بقول سديتي شنتي قال نجيبي الله كل سجالكي شن الله عتصر نبرني ميا كسوقي ناين وضلك هرمر جارسيو waxaan dul marayaa sheekadan maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu jaamacadda u fariistay oo uu galay 1985 wuxuuna qalin jibiyay oo uu shahaadada bachelor ka qaatay 2009 in jaamacaddu uu ka qalin jibiyay 4 sano kadib waxay ka marqaati kacday inuu yahay nin ay waxbarashada dhibaato ka haysata ama maskaxda aan ka wanaagsanayn taasi ay qolooyinka qalaad ugu magac daraan ama ay ugu yeeraan learning disability qolooyinka waxbartay kuwa afka qalaad dhaqaatiirtu waxa ay sheegaan in waxbarashada noocan loogu yeero ama dadka noocan loogu yeero qof gaabisa oo waxbarashada gaabiska ah maadaama maskaxdooda ay la soo karin xawliga sare ee waxbarashada jaamacadda oo ugu badnaan 4 sanadood ay tahay in looga qalin jibiyo marka loo eego shuruucda caalamka iyo waxbarashaduba qofku wuxuu jaamacadda ka qalin jibiyaa 4 sano kadib marka uu dhameeyo ama uu ka baxo dugsiga sare laakiin waad arkaysaan maxamed cabdullaahi farmaajo 4 sano ay ku qaadatay inuu bachelorkiisa xoogsado oo uu soo helo farmaajo inuu yahay qof maskixiin xanuunsanaya waxaa kaaga marqaatiyo cadeyn buuxda kugu filan marka uu ku hadlayo gaagaaleynta shigshiga karid la'aanta iyo toosinta hadalka afka Soomaaliga kala qabsan yihiin حشيش وعامل sida Ingiriis haba fadhiba Ingiriis xaalkiisu waa saan The challenges of radicalization, illegal medications, migration. farmaajo ku dhawaaqitaankiisa weeraha waxa uu hadaaqayaa sida dhallaanka hadaaq baradka ah ee markaa uu dhashay oo 1 sano jir 2 sano jir 3 sano jir ilaa 4 sano jir ah tusaalooyinka cadcad ee aan soo qaadanayo waxa ay tahay dad lagu laayay degmada wada jir oo farmaajo maalintii caleemasaarkiisa rabay inuu sheego inay ahaayeen dad aan waxba galabsan ayuu wuxuu ku sheegay oo uu ku tilmaamay inay yihiin wax magarato la laayay dad wax magarato ah oo la laayay maxamed cabdullaahi farmaajo mar uu ka hadlayay siyaasiyiinta mucaaradka ahi waxa uu ku tilmaamay ama uu ku sheegay inay ka bixi waayeen dalka markii tartanka uga guuleystay isagoo aaminsan ay maskaxdiisu ay qiyaastii kaliya u sheegi karto in dadka ay dhamaantood ay yihiin dad qurbaha ka yimid oo aan xaq u lahayn inay dalkooda ku noolaadaan waa intay maskaxdiisu u sheegtay
معناها فرماجو وحو آمسان يهي إن دمان سياسيين سوماليات أي قربها كي يمان سيدي ساقا أما أي باورت الباقي كشاقين جرين سيدي ساقا مركا وحو ليهي هدي أنك قوليستي maxay siyaasiyiinta mucaaradka ahi u joogaan dalka ma iska baxaan may tagaan ma baxdiin maxaa dhac maxaa rabtiin waa maskaxda marka dadka qaarkood ma fahamsan laakiin waa maskaxda maxamed cabdullaahi farmaajo maruu ka hadlayay diinta islaamka waxa uu sheegay in Soomaalidu islaam yihiin laakiin diinta islaamka aysan ku dhaqmin taasi waxay ka areysiisay culimada oo la yaabay laakiin waxa jira wax kale ma aha waa maskaxda maxamed cabdullaahi farmaajo mar ay saddexdii hor joogto isagoo qodbaynaya waxa uu garan waayay magaceeda waxa uu ugu yeeray abshiro iyadoo magaceeda uu yahay bishaaro ka war hooyada hadda magaceeda aqoonweysi waa la yaabay qof baa qayliyay oo ugu yeeray waa bishaaro aadan markaas ayuu daba qabsaday dhawaaqii soo baxay xumaan miyay ka tahmay xumaanka ma ahay waa maskax caawa nin iga nasiib badan ma laha hooyaday waa joogtaa Maryam Xasan ما شاء الله oo ka mid ahayd halgamiyaashii hore ee SYSha iyo sodogtay abshiro aadan bishaare aadan iyo xaaskayga halkan ila fadhida oo garabkayga ah iyo maxamed cabdullaahi farmaajo isaga oo ka hadlayay Djibouti waxa uu sheegay in 30 sano ka soo wareegtay maalintii xorriyadda ay qaadatay Soomaaliya wuxuu sheegay in 30 sano ay buuxsami doonto goori buuxsamaysaa waxay buuxsamaysaa buu yiri marka la gaaro 2020 oo maba oga inayna ku jirto sanadka 2020 wax kale ma aha maskaxda walaalkeen Ismaaciil Margeelle waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suroobin waxaan ku iri madaxweynuhu 20 sano iyo carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxa laga joogaa 30 sano maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka hor hadlay baarlamaanka waxa uu sheegay in dawladdiisu ay waxbarasho free siiyeen 65 arday wuxuu kala jeeday in ay waxbaraan 65,000 oo arday si taageerayaashiis sheegeen gaagaalintaas isku dhexyaacaas iyo ilowshiyaha hadda soo kordhay wax kale ma dowladani waa dowladdii ugu horeysay oo bixisay waxbarasho free ah oo lacag la'aan ah 65 arday yaan waxaan siinaa waxbarasho حشيش وحرامي لكن شادي شرف waxay leedahay odaga xashiis mas'ala macaba حشيش وحرامي farmaajo xaalkiisu waa ka laakiin ayaan darada jirtay waxa weeye dad baa weli daba taagan odagu jaamacadda ka soo baxay waxa ugu horeysay jaamacaddan waxa la jaamacadda beenta waa nin jecel in la amaano waa nin necab qof kasta oo dhalisha waa nin necab toosinta waa nin jecel qalloocinta ardaydiisu laftooda waxbarashadii learning disability ay haystaan waa caliyare war dheere oo noo sheegay inuu jaamacadda Oxford ku bartay online oo shahaado ka qaatay laakiin ninkaas jaamacadda Oxford ka soo baxay wuxuu ku qodbaynayaa in Soomaaliya ay leedahay qaaradda ugu dheer Afrika ilaa kulli Soomaaliya maxaa ka taqaanaan hayaa qaaradda ugu dheer Afrika wuxuu rabaa inuu yiraahdo Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika laakiin maadaama uu ardayda maxamed cabdullaahi farmaajo maadaama isku waxbarasho yihiin maadaama laga yaabo inay ka siman yihiin learning disability-ga odagu wuxuu kala saari la'yahay aqoon darro awgeed xeeb iyo qaarad iyo bad inta wax lagama yaqaano عند عليك أنا ستاجيه learning disability محمد عبد الله فرماج and his son waxaan ku heshiinay Soomaaliya ama ay tahay inaan leenahay qaaradda koowaad Afrika ugu dheer
markaasoo lama huraan noqon mayso inaan ka faa'iidaysano qaaraddaas. walaalkeen Ismaaciil Margeelle waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suroobin. waxaan ku iri madaxweynuhu 20 sano iyo carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano soo socda 2020 sanadkan ku jirno 30 sano waa wada joognay dib iyo dheefba 30 sano waa burbursaneen oo adduunkan ugu liidanay. شادي هي علي لك ور حشيش وحامي ويا عجيز معي لوس دعي شاو دار على سؤالي طبيعي كده عمره ثانية يا سيدي الصحافة ما صعب جبتها انت هاي نو جبتو نوار ايه النحرين